deeqahan kala duwan ee isugu jiray raashinka nafaqaysan iyo agabka waxbarashada ee caruurta ayaa la gaarsiiyay dadka ku nool kaamka barakacayaasha ee degmada Ballimataan halka agabka waxbarashada la gaarsiiyay ardayda wax ka barata dugsiyada Qolcaday Balciise Qotan iyo dugsiga boardingka ah ee Ballimataan waxaana deeqdaasi gaarsiisay hay'adda Life International oo magaceeda la yiraahdo Local Initiative for Education waxaana deeqdaasi ay gaarsiisay dadkaasi barakacayaasha iyo ardayda wax ka barta dugsiyadaasi waxaana guud ahaan raashinka la gaarsiiyay 400 oo qoys oo barakacayaal oo ku degmada Ballimataan halkana ardayda la gaarsiiyay agabka waxbarasho 600 arday oo wax ka barta dugsiyada hoos yimaada degmooyinka Salaxley iyo Ballimataan Cabdiqaadir Sheekh Xasan Maxamed oo ku hadlayay afka hay'adda qaybinaysa deeqdan ayaa ka waramay deeqahan iyo waxyaabaha ay ka kooban yihiin marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in caruurta ay ayaga laftooda halkan ay niyadooda iyo waxbarashadooda aqoontooda sare u qaad doonto oo u noqon doonto dhiirigelin sidoo kale halkan waxaan ku qaybinaynaa saaka cuntooyin nutrition ah oo nagu talagalnay boardingkan Ballimataan iyo boardinka kale oo soo maray laftoodaba runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay ka hay'adahan waxaan ballan qaadaynaa inaan kordhin doono laba laabi doono saddex laabi doono insha Allah ma noqon doonto markii koowaad halkan nimaadno gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee galbeedka gobolka Maroodijeex Mudane Xuseen Dheere iyo gudoomiyaha degmada Ballimataan Axmed Naasir ayaa soo dhaweeyay deeqdaasi isla markaasina uga mahadceliyay hay'adda Life International ee soo gaarsiisay dadka barakacayaasha iyo ardayda wax ka barta dugsiyada hoos yimaada degmada Ballimataan iyo Salaxley alxamdulillaah rabbil caalamiin halkan maanta waxaanu hay'adda Life International ka gudoonay anagoo maamulkii iskuulka iyo kii waxbarashada iyo kii heer gobole waxbarashada ah qalabka caruurta ku farxayso iyo cuntada nafaqaysan ee halkan taala ayaanu ka gudoonay anagoo ka maamul ahaan waxa kale oo ay keeneen halkan hortayada yaala raashin nafaqo leh raashinkaasi wuxuu ka kooban yahay bariis wuxuu ka kooban yahay khudrad nooc kasta oo ku jira wax alla wuxuu u baahan yahay oo biyo ahayn oo lagu darayaa ma jirto waxa kale oo aanu maanta soo maray waana idin sheegay meesha la yiraahdo Qolcaday waanu soo maray Balciise inta in leeg baan soo dhignay waxaanu soo maray Qotanka weyn waxaanu siinay intii arday joogtay dhamaantood mid walba iskuul walba inta arday joogta qof walba waa la siiyay garaad mahdi oo ku hadlayay afka dhaqanka degmada Ballimataan ayaa isaguna sheegay in ay deeqdan ay tahay deeq muhiim ah isla markaasina u baahnayeen dadka barakacayaasha iyo ardayda wax ka barta dugsiyada hoos yimaada degmada Ballimataan iyo Salaxley iyadoo aan soo marnay Salaxley iyo Ballimataan halkaas oo iskuulada ku yaala Salaxley iyo Ballimataanba agab waxbarasho iyo raashinba ay hay'adaasi soo gaarsiisay Cabdiqaadir Cabdullaahi Nuur warbaahinta qaranka Soomaaliland